midho dhalkii shirkaas shalay ka soo baxay waxaa ugu horreeya oo ka soo baxay in maanta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu cafis u fidiyey weriye cabdimaalik muuse caldoon oo ahaa weriye maxkamadda gobolka maroodi jeex ay ku xukuntay 2 sannadood dembi qaran uu galay awgeed isagoo madaxweynuhu tixgelinaya saxaafadda jamhuuriyadda somalilan qoyskii muwaadinkaas cabdimaalik muuse caldoon madax dhaqameed fara badan iyo codsiyo badan oo ka yimi international community-gaba ama dalalka jaarkaaba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu gartay muwaadin weriye cabdimaalik muuse caldoon inuu noqdo muwaadin xor ah maanta sidaas ayaa lagu sii daayey